assalaamu calaykum maanta halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa rag meel ebre ka soo bilaabay qaaca ugu hooseeyo ilaa ay gaareen dusha ugu sarraysa ee guusha hantiyadeed kuna fadhiya maanta malaayiin lacaga ilaahay bini aadamka wuxuu siiyey awoodo uu waxyaabo badan ku xaqiijin karo keliya hadduu adeegsado caqligiisa lana imaado rabitaan dhaba waxaan tusaale u soo qaadanaynaa 4 nin oo aan ka hadli doonno intaan mawduuceenna ku guda jirno waa rag xadaarado diime iyo deegaano kala duwan ka soo jeedo fadlan dhowr ilbiriqsi inta aanan mawduuca gelin muuqaalka like saar faa'iido weyn ayuu u leeyahay faafidda iyo kor u qaadidda qiimaha kanaalka haddaadan weli ku soo biirin kanaalka fadlan riix meesha ay ku qoran tahay subscribe sidoo kale adigoo riixaya gambaleelka ku agdhegan ku soo dhowaada qaybtii koobaad ee qisada guusha aan ku bilowna ninka ugu horeeyo waana milyaneerka lagu magacaabo shahiid khan milkiilaha naadiga Fulham iyo silsilada hoteelo qaaliya sidoo kale wuxuu leeyahay warshado sameeyo qalabka gawaarida spare partska shahiid khan wuxuu asagoo gacmo maran ka soo haajiray waddanka Pakistan wuxuuna rar ka dhigtay waddanka Mareykanka markuu Pakistan ka soo duulay wuxuu gacanta ku hayay $500 kaliya asagoo islaha noloshada ku maaree ilaa inta aad shaqo kale ka helayso markuu Mareykanka gaaray wuxuu degay wax magac guri huwan oo $2 lagu seexday habeenkii intaas kadib wuxuu helay shahiid khan shaqo saxama dhaqida muddo ayuuna ka shaqaynayay in uu maqaayadaha saxamada u dhaqo niyadiisa su'aalo badan ayaa ka guuxayay sida waligay sidaan miyaan ahaan in aan maqaayadaha iyo hoteelada weelasha u dhaqo wuxuu go'aansaday in uu jaamacad bilaabo asagoo ku biiray jaamacadda Illinois isla markiiba waxaa lala yaabay maskaxdiisa iyo sida uu waxbarashada ugu fiican yahay wuxuu bartay injineernimada warshadaha sanadyo badan ayay noloshiisu ahayd weelal dhaqid si uu quudkiisa u saxo iyo inuu waqtiga soo haray jaamacadda aado shahiid khan markuu jaamacadda dhameeyay wuxuu shaqo ka helay shirkad spare partiga qalabka baabuurta samayso 7 sano ayuu ka shaqaynayay laakiin wuu isaga tegay kadib markay shirkaddu diiday in ay qiimayso afkaar iyo aragtiyo uu soo jeediyey intaas kadib maadaama guul lagu gaaro shaqo aad adigu leedahay cidna aadan u shaqaynaynin ganacsi iyo wax kuu gaara wuxuu go'aansaday xoogaa dayna in uu qaato si uu u aasaaso shirkad yar oo asagu leeyahay kana shaqayso wixii uu soo bartay muddadana ka soo shaqaynayay wuxuu furtay meel yar oo gawaarida lagu sameeya asagoo dabaqaya afkaar cusub laakiin shirkaddii hore ee uu 7 sano u shaqaynayay ayaa maxkamad ku soo oogtay ayagoo leh fikradda shaqadiisa cusub shirkadeenna ayuu ka haday nasiib wanaag cadaaladdu way meel martay shahiid khan wuxuu helay baraa'a ah in uusan dembi gelin dhinaca xadidda fikradda la xiriira waxaa qornayd in shirkaddaas fashilanto laguna dhawaaqay inay kala kacday khan fursaddaas ayuu ka faa'iidaystay wuxuuna soo iibsaday shirkaddaas uu markii hore ka shaqaynayay shirkadda shahiid khan waxay ka shaqaysaa samaynta spare partiska muddo yar kadib waxay shirkaddiisu dabooshay kala bar gawaarida ku socota Mareykanka waxaa si xawli ah u koray hantidiisa 2011kii wuxuu gatay naadi ciyaaro kubadda Mareykanka naadiga lagu magacaabo Jacksonville qiimo dhan $770 milyan naadiga garoonka intaan la agle sidoo kale wuxuu gatay naadiga Fulham ee ka ciyaaro horyaalka sare ee Ingiriiska mar aan fogeyn ayuu hoteelo qaali ka gatay sidoo kale waddanka Canada waa mid ka mid ah qisooyinka dhinaca halganka kuwa ugu wanaagsan waxaa guul hantiyadeed lagu gaaraa ganacsi iyo hawl aad adigu leedahay isu shaqaynayso haddaad tahay shaqaale weligaa mushaar bisha 5 markay tahay dhammaado iyo dayn kama baxaysid xayndaabkaas ayaad ku wareegan ku daya shahiid khan hawshaadana qabso cidna ha u shaqaynin qisada labaad waa qisada nin ka soo dhex baxay kulaylka saxaraa hoolaca tufaayo xilli deegaanka iyo dalka uu ku noolaa ahaa meelaha caalamka ugu faqrisan waana Sulaymaan Ar-Raajixi bilyaneer caanka ah wadamada Carabta ahna ragga ugu maalqabeensan caalamka oo dhan
1929 ayuu dhashay. xilligaas dhulka Sacuudiga wuxuu ahaa meelaha caalamka ugu adag ee lagu noolaan karo. faqri iyo gaajo aad u xun ayaa jasiiradda carabta ka jirtay ka hor soo saaridda batroolka. waxaa adkaa in la arko qof maalqabeena, taasoo keentay in Sulaymaan Arraajixi asagoo 9 jira uu dambiisha qaato si uu wax u iibiyo. maanta bangiga Arraajixi ku dhowaad 800 oo laan ayuu ku leeyahay gudaha Sacuudiga iyo xarumo aad u badan daafaha dunida. sidaan wax yar ka hor kor ku soo sheegnay 9 sano isagoo jiro, xaaladda reerkooda darteed ayuu ku qasbanaaday in uu iibiyo dembiilaha lagu adeegto. xaalad aad u adag ayay ku jireen, taasoo keentay in reerku uu u guuro Riyaad bal in ay dhaanto deegaankooda. 10 sano markuu gaaray, dembiil iibinta wuxuu uga sii gudbay in uu xamaali noqdo asagoo da'daas jiro. 10 sano isagoo jiro ayuu ahaa xamaali. 12 sano markuu gaaray, wuxuu u wareegay in uu guro miraha timirta, in uu beeralayda timirta u guro ay siiyaan muqaabila 6 riyaal. waxaa yar in la arko hawl uuna ka soo shaqaynin, taasoo siisay khibrad aad u weyn. markuu marxaladda dhallinyaronimada gaaray ayuu go'aansaday in uu saldhigto, wuxuuna furay dukaan lagu iibiyo quutul daruuriga sida sonkorta, shaaha, cusbada iyo taraqa. waa dukaanada maanta aan aragnoo kale, dukaanada yaryarka. laakiin dukaankii wuu iibiyey si lacagta yar ee ka soo xarootay iibintiisa uu ugu daboolo nafaqada guurkiisa. wuxuu go'aansaday in uu guursado reer dhiso. intaas kadib wuxuu u wareegay ka ganacsiga lacagta, waa waxa lagu magacaabo sariflaha. xujayda ayuu lacagta ka beddeli jiray. waxaa hawshaas kula soo biiray walaalkii Saalix Arraajixi. mashruuc noqonaya ayuu noqday sariflanimadu, taasoo keentay in 1956 ay aasaasaan kabar yar oo lacagta lagu sarrifo. kaga qiyaas qaado sariflayaasha aad aragto ee meelaha fadhiyo, dukaanada yaryarka ama kabarada yaryarka. kabarkaas yarka ee sariflaha waxaa ka dhashay masraf Arraajixi, bangiga Arraajixi. maanta 100 xarun ayuu Sacuudiga ku leeyahay iyo daafaha dunida. 8,000 oo shaqaalaha ayaana ka shaqaysa maanta bangiga Arraajixi, waana kan ugu macaamiisha badan Sacuudiga. waxaa xusid mudan in Sulaymaan Arraajixi uuna hilmaamin xaqa lagu leeyahay, taasoo ah in uu malaayiin lacagtiisa sadaqa iyo khayr u bixiyo. waa nin aad loogu yaqaano samafalka iyo howlaha khayriga. taariikhda bini'aadamka, maalinkuu ilaahay nebi aadam dhulkan keenay ilaa maanta, ma jiro nin mushaar qaato, nin bisha markay dhammaato mushaar sugaayo oo milyaneer noqday. taariikhda kuma helaysid. dhammaan milyaneerada waa dad ayaga shaqaystay, waa dad ganacsi iyo howlo ay ayagu leeyihiin aasaasay. tusaalaha saddexaad, Du Wong Chan. nin ka bilaabay ka shaqaynta kaalin shidaal, laakiin ugu dambayn dhisay imbaraatoriyada shirkadaha. waa ninka lagu magacaabo Du Wong Chan. asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Kuuriya, gaar ahaan koonfurta Kuuriya. 80aadkii ayuu Maraykanka gaaray. xilligaas Kuuriya sida ay hadda tahay ma ahayn, waxaa yara fursadaha shaqo, taasoo keentay in uu u boqolo Maraykan. markuu Maraykanka gaaray, xaalku ma ahayn inuu gacmaha iyo lugaha la galayo lacag. wuxuu ku qasbanaa in uu saacado badan ka shaqeeyo shaqooyin yaryar. wuxuu ugu yaraan ka shaqaynayay 3 shaqo oo yaryar. waxaa ka mid ahaa kaalin shidaal, si uu nafaqaadka noloshiisa u daboolo. wuxuu arki jiray ragga dharka qurxan xiran ee gawaarida qaaliga wata ee shidaalka ka cabaysan ee kaalinta, in ay intooda badan ka shaqeeyaan ama leeyihiin shirkadaha dharka, taasoo ku dhalisay in uu ku fikiro unkidda shirkad yar ama dukaan dharka lagu iibiyo. xoogaagii uu shaqooyinka adag ka soo xareeyey ayuu geliyey dukaankiisa. ilaahay wuxuu qadaray in sanadkii ugu horreeyey waxa uu iibiyey ay gaarto $700,000. intaas kuma uusan ekaanin, wuxuu ku sii ballaartay dhinaca dukaamada dharka in uu xoog u maalgashado. wuxuuna aasaasay shirkadda Forever 21. haddaad Maraykan ku nooshahay ama meel kaloo caalamka ka mid ah, waxaan qiyaasayaa inaad dhar ka soo iibsatay maalin uun. ninkii kaalinta shidaalka ka shaqayn jiray maanta waxa uu shaqaysa 45,000 oo qof, wuxuuna leeyahay 800 xarun oo ku taalo 48 dal daafaha dunida.
aniga hadda waxaan idin kala hadlayaa magaalada Dawxa ee waddanka Qatar 13,000 oo kiiloomitir ayay noo jirtaa California meesha uu ka aasaasay dukaanka ama meesha uga shaqayn jiray kaalinta shidaal laakiin masaafada intaas dhan wuxuu ku guuleystay in shirkadiisa ay soo gaarto halkan in 13,000 oo kiiloomitir ay jarto xarun ayay ku leedahay waddanka Qatar shirkadii uu aasaasay ninkii kaalinta shidaal ka shaqayn jiray waliba Qatar waa wadamada carabta wadamada ugu yar dhinaca badka maxaad u malay marka daafaha kale caalamka kaalin shidaal ayuu ka shaqaynayay ninkan wuxuu ku jira dadka ugu qanisan Mareykanka iyo caalamka maanta haddii uu shaqaale ahaan lahaa weligii halkiisa ma uusan dhaafi lahayn shaqaalinimadu waa xindaab ka kooban ama ka samaysan sidaan mar walba sheegno dayn bishii ma dhammaatay biilkii wuu dhammaaday idaymi bisha markay dhammaataan ku siine qofka shaqaalaha weligii silsiladaas ayuu ku wareegan qisada afaraad aasaasaha shirkadda Huawei ama Huawei shirkadda telefoonada Shiinaha laga leeyahay ee Huawei waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horeeya caalamka dhinaca samaynta telefoonada waxay mar aan sii fogeyn ka hormartay shirkadda Apple waxayna gashay kaalinta labaad kaliya Samsung ayaa ka horeyso aasaasidda shirkaddan waa mid ka mid ah qisooyinka guusha kuwa ugu wanaagsan waxaa aasaasay sargaal ka mid ah ciidanka xoreynta Shiinaha waa magaca rasmiga loo yaqaan ciidanka Shiinaha waana ninka lagu magacaabo Reng Zhangfi aasaasaha shirkadda wuxuu ahaa sargaal dhinaca isgaarsiinta ciidanka Shiinaha laakiin wuxuu ka mid noqday rag badan oo ciidanka laga fariisiyay kadib markii xukuumadda Shiinuhu go'aansatay in la dhimo tirada ciidanka Shiinaha khibradii dhinaca isgaarsiinta ahayd ee uu yaqaanay ayaa ku dhalisay in uu fikirkiisa u bato ka shaqaynta isgaarsiinta sida uu sheegay xillig wuxuu soo maray uu xirnaa dhar toltolan uuna haysanin lacag uu ku iibsado dhar cusub hooyaday waxay la ildarneed macluul afkiisa ayaa laga hayaa shirkadda Huawei maanta waxa u shaqeeyo shaqaale 100,000 ah laakiin waxay ku bilaabatay ra'sumaal dhan wax ka yar $4,000 $3,500 $3,500 in shirkad intaas leeg lagu aasaaso waa arrin u muuqda mid mustaxiil ah waa shirkad maanta miisaaniyadeeda iyo lacagteeda ay ka badan tahay dawlado badan oo la isku daray 1987 ayaa la aasaasay shirkadda Huawei shirkaddu waxay ku bilaabatay samaynta qaybiyaha telefoonada caadiga waa qaybiyaha telefoonada qaybiyo 1996 xukuumadda Shiinaha waxay qaadatay siyaasadda taageeridda shirkadaha maxalliga ee isgaarsiinta in xadna loo yeelo kuwa ajaanibta siyaasaddaas ayadoo shirkaddan ka faa'iideysanayso ayay ku dhaqaaqday furashada xarumo baaritaan ujeedka xukuumadda Shiinuhu ma ahayn in si toos loo taageero shirkadaha maxalliga ee wuxuu ahaa in loo fududeeyo haddii shirkad Shiinaysa iyo shirkad ajnabi ah tartamayaan in mantiqada loo ogolaado inay ka shaqeyso shirkad maxalli ah ee ma ahan taageerid kale waxaan markay yara dhawaajinay in shirkadaha waaweyn ee caalamka sida Apple Samsung dhammaantood ay malaayiin lacag ku bixiyaan baaritaanada maanta Huawei waa shirkadaha ugu waaweyn ee sameeyo qalabka isgaarsiinta ma ahan telefoonada kaliya wax kasta oo la xiriiro qalabka isgaarsiinta waana tan labaad dhinaca telefoonada gacanta sidaan soo sheegnay shirkadda intaas leeg heerkaasna gaartay waxaa aasaasay Unkayna nin aanan haysanin wax uu ku soo gato dhar nin hooyada ay la ildarnayd gaajo iyo macluul laakiin ugu dambeyn wuxuu aasaasay imbaraatoriyadaas aadka u weyn haddii uu muuqaalkan ku cajabiyay sidaan soo sheegnayba like saar si aan u ogaano in aad rabto in aan soo gelino muuqaalo noocan oo kale intaan ayaan ku joojinaynaa maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu